wacan oo wanaagsan daawadayaal meel waliba aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii u dambeeyay aynu idinkaga hayno wadanka Itoobiya. qodobada aynu wararka ku soo qaadan doono waxa kamid ah waxa maalintii labaad galay dagaal xooggan oo u dhaxeeya ciidamada militariga Itoobiya iyo kooxda TPLF. ciidanka Tigrayga oo bilileqaystay shidaal ay lahaayeen hay'adda qaramada midoobay ee ku taala magaalada Mekelle. qodobadaas iyo qodobo kale aynu isdul taagi doonaa saaxiibayaal ku soo dhawaada channelka oo subscribe noo sar like noo sar asxaabtaadana la sii wadaag markale soo dhawaada saaxiibayaal hadii aynu ku bilowno ciidanka Tigrayga oo bilileqaystay shidaal ay lahaayeen hay'adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in ciidanka Tigrayga ay bilileqaysteen 570,000 oo litir shidaal ah kadib markii ay si xoog ah ku soo galeen xarun ay lahaayeen hay'adda cuntada WFP oo ku taalay magaalada Mekelle sida uu xaqiijiyay madaxa hay'adda. sidoo kale madaxa hay'adda oo hadalkiisa si wato waxa uu yiri bakhaarka barnaamijka cuntada adduunka ee Mekelle waxa xoog ku galay ciidamada Tigrayga kuwaasi oo qaatay 12 booyadood oo buuxa oo shidaal ah oo ay saaran yihiin ku dhawaad 570,000 oo litir shidaal ah. kooxda goobtaasi joogtay ama goobtaasi ilaalinaysay kuma aysan guuleysan in ay ka hortagaan bilileqadaasi ayuu yiri afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay oo bayaan ka soo saaray dagaalka ka soo cusboonaaday Itoobiya. sidoo kale waxa uu afhayeenka sii raaciyay waxaan cambaareynaa wax kasta oo bilileqa ah ama lala wareego badeecooyinka bini'aadanimada ama goobaha bini'aadanimo. waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada in ay ilaaliyaan waajibaadkooda sida uu sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimadu in ay ixtiraamaan shaqaalaha dhaqdhaqaaqa hantida iyo dabeecadaha ayuu sii raaciyay afhayeenkaasi. shidaalkan ayaa loogu talagalay in ay isticmaalaan gawaarida gargaarka bini'aadanimo gaarsiisa dadka gobolka Tigrayga. sidoo kale afhayeenka oo mar kale uu sheegay tani waa ceeb iyo fadeexo waxaan dalbanaynaa ayuu yiri afhayeenka in shidaalkan hadda la soo celiyo ayuu yiri David madaxa hay'adda WFP. waa tahay daawadayaal halkaasi hadii aynu kaga gudubno waxa maalintii labaad galay dagaal xooggan oo u dhaxeeya ciidamada Tigrayga iyo kooxda TPLF oo maalinnimadii shalay ahayd ay weeraro isku bilaabeen ciidamada militariga iyo kooxaha Tigrayga. ku dhawaad sanad iyo bar ayuu dagaal dhaxmarayay ciidamada militariga Itoobiya iyo kooxda TPLF waxaana la sheegay in dagaaladaasi ay ku dhinteen ku dhawaad 100,000 oo dad sidoo kalena ay gaajo iyo macluul ugu dhamaadeen gobolka Tigrayga oo markii horeba cunaqabatayn xooggan kala kulmay xukuumadda Abiy Ahmed oo dagaal kula jiray kooxaha TPLF. balse sanad iyo bar kadib bilooyin ayaa ka soo wareegatay markii ay heshiisyo u fadhiisteen kooxaha TPLF iyo Abiy Ahmed oo ay ka wada hadleen in gabi ahaanba la soo afjiro dagaaladani ayaa haatanba bilooyin kadib waxa dib u laba qarxay dagaal xooggan oo ay isku qaadayaan ciidamada militariga iyo kooxaha TPLF. afhayeenka Getachew Reda ee Tigrayga ayaa waxa uu sheegay in dagaalka ay bilaaween ciidamada militariga Itoobiya oo markii horeba loo sheegay in gabi ahaanba la soo afmeeray dagaalkaasi ayna dib dambe dagaalo xooggan aysan ku qaadin ciidanka Tigrayga. balse afhayeenka Getachew Reda ayaa waxa uu intaasi ku sii daray in maalinnimadii shalay ahayd ay weerar gaadmo ah ay ku soo qaadeen ciidanka booliska ama ciidamada militariga Itoobiya sidoo kalena ay dhaqdhaqaaqyo xooggan oo dagaal ah ay dareemayeen maalmihii u dambeeyay. balse maalinnimadii shalay ayay si cad u soo afbaxday in dagaalo xooggan ay dib uga bilowdeen gobolka Tigrayga halkaasina uu dagaalo xooggan oo haatanba ku dhaxmarayo ciidamada militariga Itoobiya iyo kooxaha TPLF. balse dagaaladii u dambeeyay ee halkaasi 24 saacadoodkii ay ku dagaalamayeen aan iraahday ciidamada militariga waxa la sheegay in kooxda TPLF ay isla markiiba abaabul xooggan ay ka dhax bilowday magaalada Mekelle iyo sidoo kale xadadka ay dagaaladu ka socdaan iyagoo iska difaacaya ciidamada militariga Itoobiya. ilaa hadda dawladda dhexe ama iraahday dawladda federaalka Itoobiya Abiy Ahmed uu hogaaminayo wali kama aysan hadlin dagaaladani xooggan ee dib uga bilowday gobolka Tigrayga.
dhanka kale waxaa la sheegayaa in dagaaladii u dambeeyay ee halkaasi ka dhacay ay ku jabeen ciidamada militariga Itoobiya sidoo kalena kooxaha TPLF ay dib u bilaabeen in ay la wareegaan deegaano iyo degmooyin ay ku hareysnaayeen ciidamada militariga Itoobiya. dhanka kale waxaa la sheegayaa in deegaanka Canfarta goobo kamid ah ay TPLF ku qaadeen weeraro xoogan goobahaasi ay ku sugnaayeen ciidamada militariga Itoobiya sidoo kalena waxa ay sheegeen in goobahaasi ay qaybo kamid ah deegaano ay ka qabsadeen ciidamada militariga Itoobiya. kooxahan TPLF ayaa cabashooyin xoogan waxa ay la duldhaceen sidoo kalena dhaleecan xoogan kala duldhaceen in ay khiyaamiyeen Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisa ama ciidamada militariga Itoobiya oo ay horey heshiisyo uga gaareen in gabi ahaanba dagaalkani la soo afmeero sidoo kalena miiska wada heshiisiinta ama kursigaasi la isugu yimaado. mar ayay ahayd bilooyin ka hor markii la isku yimaanayay magaalada Nairobi halkaasi ay fadhi ku yeesheen madaxa u sareeya TPLF iyo sidoo kale Abiy Ahmed oo ay ka wada hadleen in gabi ahaanba ay soo afmeeraan dagaalkani halkaasina ay ku ekeeyaan. 3 bilood kadib shalay ayuu dib u bilowday dagaal xoogan oo haatanba ay dib u yegleelayaan ama ay bilaabayaan ciidamada militariga Itoobiya. ilaa haatanba dowladda dhexe ee Itoobiya kama aysan hadlin dagaaladani xoogan ee TPLF walow ay TPLF afhayeenkooda sida aan horey ku soo sheegnay ay sheegeen in ay iyagu bilaabeen ciidamada militariga Itoobiya sidoo kalena weeraro ay ku soo qaadeen. waa tahay intaasi haddii aynu kaga gudubno aynu u soo laabano khasaaraha xoogan ee labada dhinac ee soo kala gaaray TPLF iyo ciidamada militariga Itoobiya. afhayeenka TPLF ayaa sheegay in guulo waaweyn ay ka gaareen 24 saacadoodkii u dambeeyay dagaaladii ay kula jireen ciidamada militariga Itoobiya. waxa uu sheegay afhayeenka in gabi ahaan dhifeysyo ay lahaayeen ciidamada militariga Itoobiya ay ka saareen sidoo kalena ay haatan ay iyagu la wareegeen ciidamada TPLF. dhanka kale dowladda Itoobiya wax war ah kama aysan saarin khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ay soo gaaray ciidamada kama aysan hadlin gabi ahaanba balse TPLF ayaa u muuqata mid haatanba dib u bilaabtay dagaaladii ay gabi ahaanba horey kula jirteen iraahdee Abiy Ahmed. arrintani ayaa haatanba dowladaha caalamka oo marka hadlayeen waxay sheegeen in dagaalkaasi uu dib u soo laabanayo sidoo kalena ay dusha ka saareen dowladda Itoobiya in gabi ahaanba arrintaasi ay soo gabagabeyn lahaayeen ay dib ugu bilowdeen ciidamada militariga Itoobiya in ay weeraro ku qaadaan kooxaha TPLF. arrintaasi ayaa u muuqata in TPLF ay dib dambaba ay ula fariisan doonin Abiy Ahmed oo ballan kaga baxaya kadib markii ay weeraro gaadmo ah lagu soo qaaday. waa tahay saaxiibayaal intaasi aynu ku soo gabagabeynayna. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.